kulanti wacan wanaagsan asxaabta meel walbo aad naga daawanaysaan kulla caam wa antum bikhayr ciid wanaagsan kusoo dhawaada qaybtii saddexaad ee sheekadii garaad wiilwaal. farxad isu hambaliyeyn iyo ismahadin ayna muujinin ayaa saaqay. waxaa intaasi noo joogay qaybtii labaad ee sheekada. shirkii ayuu odagii u dhalandhoolay. waxa uu u tagay raggii amarka la siiyey oo mid walba cad oo soo qaaday, mid walbana midka kale ka qarinaya cadka oo doorbiday. way isfiirfiiriyeen, isfiirfiirintuhun iyo allow ceebta astuur ku dheehan tahay. wax yar kadib garaadkii ayaa soo muuqday. asalaamu calaykum iyo wacalaykum assalaam, iyo waxay isku dareen war garaadka u sara joogsada. fadhiista adinkoo mahadsan. nin walbana shaacaha ka qaado cadka oo soo saaray ayuu si gaaban u ogeysiiyey. dhinacii odayga maskiinka ah fadhiyey ma ahee dhinacii kale ayuu dhawaaqii ka yeedhay. nin walbana daboolka ka roga cad aad loo soo habeeyey. ma bowda, ma garabba, ma sararba, cadba cadkoo ka gashin wanaagsanaa. odagii ayaa tala ku ciirtay oo hamiyey in dhulka uu la go'o. alla uu xil fura mooye weedh kale ayuu afkiisii ka haleeli waayey. wuxuu is yidhi adigu waa bowdaduu hebel keenay oo kale unbaad la imaan lahayd ee tii yareed ayaa alle kuu soo diray. war ileen talo isuma kaa sheegto iyo alla aqliga xaasidsana ayuu hoosta ka guray. gabadhiisii ayuu hiifay, ileen iyada u soo xambaarisay cadkaa baase. hadal afka ka weyn iyo tala haween raace tagoogtoo ka jabaa iyo mahmahyo la mid ah ayuu xuso odagii. garaadkii ayaa weydiiyey, oday adna maxaad soo qaaday? meel oo ka noqda ma joogee wuxuu daboolka ka rogay hungurigii kadib markay dhowr jeer gacantiisa dib ugu noqotay. alle tala dhawaaqday. wixii rag shirka fadhiyay ayaa mar keliya afka labadii dhawaaqay. war ninku miyuu waashay mise wuu soo wataa? ayaa gees walba ka yeedhay. mafuulxumo intaa la-eg iyo ixtiraam darro heerkaa gaadha ayaa garaad wiilwaal maanta loo geystay. alla adduunyo iyo xalka. hunguri sidee buu madasha u keeni karaa? qaarkood haddii aysan wiilwaal wejigiisa ku ixtiraamaynin gacantooda ayaa gaari lahayd. ninkan ay u arkeen inuu lama maqal ee lama arag dhigay. odaygii oo awalba walbahaarsanaa ayaa sawaxanka ragga ka yeedhay rucbi iyo naxdin hor leh u keenay. hoos ayuu indhihiisa u rogay isagoo iska ilaalinaya in indhihiisa iyo kuwa garaadka kulmaan. war ilaan ceeb iyo caro nafta kaagama go'do. cabbaar ayuu wiilwaal aamusay si canaanta iyo eedeynta shirka ugu joogsato. odaygii oo la yaaban waxaa ragga kale afxumo ka soo baxaya iyo aamusnaanta garaadka ayaa isha ku baciiriyey wejiga wiilwaal. mise waaba dhoola caddaynayaa oo nin lagu gafay uma muuqdo. hubsiimo hal baa la siistaa. dhowris labaad ayuu u celiyey. mise qosol ayuu gooska goos garaadkii ka wareegay. mar keliya ayuu fajacay. wixii madasha sanku neefla fadhiyey ayuu cid kale oo aan garaadka ahayn u nuuxsata ka waayey. wuxuu is yidhi ama waa yaro khafiiftay ama waad riyoonaysaa ee sidan kolla xaqiiq ma aha.
daawade waxaa intaas inoogu joogo qaybtii saddexaad ee sheekadii garaad wiilwaal. Inta aanu ku kulmi doono qaybtan oo kale oo afaraad, sidaas iyo nabadgelyo.